السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو وناكسن ولا ليال كسو دوادا قصة كلا وعجيبة. قصة داني وحا يقصيسا أما يقصاب سانتهاي نين فقير أها أو آديات سوال أو أها كنا نولال أدك وعريري مالين مالمها كمده نينكي سوالك أها أساق أوفا ديجيت هوستي أيا وحا كفكري إن أو آدو حجك سي أو أسوبري الله سبحانه وتعالى سي أو أقبحو gaajadan iyo noloshan adag waxa uu isku soo diyaariyay aaditaanka Kacbada waanu soo aaday asagoo ku guda jira gudashada waajibaadka xajka ayaa waxa uu meel laabada ka helay daymanka ugu qaalisan dunida ee loo yaqaano daymanka gaduudan waa uu soo qaaday waxana uu ku qariyay wal yar oo uu watay waxa uu is yiri marka aad ku laabatid magaaladaadii iibso si aad uga baxdid gaajada iyo nolosha adag haddana waxa uu is yiri daymanka waxa iska leh qof alla dartii u soo aaday gudashada waajibaadka xajka alle hadii aad qarsatid oo aad iibsatid waa lagu cadaabi doonaa maalinta qiyaamo ee raadi ninkii iska lahaa iskana sii haddaba daymanka waxa iska lahaa nin magaalo dhan ka ahaa boqor ahaana nin taajir ah ninkii boqorka ahaa aad ayuu u welwelay meel walban waa uu ka raadiyay daymankii qaaliga ahaa waana uu waayay waxa uu soo istaagay meel banaan ah waxa uu isugu yeeray dadkii waxana uu ku yiri waxa iga maqan dayman qaali ah qofkii ii hela ama ii sheega waxaan siinayaa lacag ku filan ninkii saboolka ahaa ayaa maqlay warkii gacanta ayuuna taagay waxa uu ku yiri daymankaagi waa kan aniga ayaa helay wax shuruud ahna kaamarabi lacagna kaamarabi ee qaado daymankaagi ninkii taajirka ahaa waxa uu ku qasbay in uu siiyo lacag balse waa uu ka diiday waxa uu ku yiri ajarkayga waxaan u xisaabsanayaa alla dartii ninkii taajirka ahaa waxa uu la yaabay ninkan saboolka ah watana dharka jeexjeexan haddana diidaya lacagta muddo dheer kadib waxa soo dhamaaday waajibaadkii xajka qof walbana waxa uu u dareeray magaaladiisa ninkii saboolka ahaa muddo dheer waxa uu joogay magaaladii asagoo weli sidii ugu jira noloshii adkeed waxa uu go'aansaday in uu soo aado magaalo kale si uu ugu shaqeysto waxa uu soo raacay doon waxana uu yimid magaalo boqor ka ah ninkii ka lumi jiray daymanka balse nasiib daro ninkii waa hore ayuu geeriyooday boqornimadiina waxa la wareegay wiilkiisa curudka ahaa boqorka waxa uu dhalay gabar aad iyo aad u qurux badneed loona diiday boqoro badan oo soo doontay ninkii saboolka ahaa waxa uu galay masaajid waxaana uu maqlay dad ku sheekaysanaya in magaalada laga laayahay qof xaafidul qur'aan ah oo caruurta u bara qur'aanka waa uu maqlay waxa uu ku yiri aniga magaalada ku cusub waxaana ahay qof xaafidul qur'aan ah aniga ayaa baraya caruurta ee maxal ay ogol yahay waxa ay ku yiraahdeen waxaan ku siin doonaa ujuuro fiican waxa loo dhisay meel dugsi ah waxaana uu bilaabay in uu caruurtii baro qur'aanka kariimka ah dadkii magaalada waa ay barteen ninkii waxaana ay ku arkeen dabeecad wanaag aaminnimo waxay u sheegeen boqorkii waxay ku yiraahdeen ilmaha waxa quraanka noo baraya qof aamin ah boqorkii waxa uu soo xusuustay hadal uu dhihi jiray aabiis mar walba waxa uu dhihi jiray ilaahayo gabadheydii waxaad u sahashaa ninkii aaminka ahaa ee daymanka ii heli jiray nin noocaas oo kale ah gabadheydii ilaahu calaf ugu dar ninkii boqorka ahaa waxa uu ku yiri hal ii keen hadii uu aamin yahay waxaan ku darayaa walaasheydii si ducadii aabo ay u soo baxdo ninkii waxa lagu yiri waxa lagu guurinayaa gabadha uu dhalay boqorka waxa uu ku yiri waan ogolahay ee hal ay tuso gabadhii ayaa la tusay waana uu ka helay wuuna ogolaaday in uu guursado gabadhii ayaa loo guuriyay habeenkii aqalgalka markii ay galeen qolka gabadhii qoorteeda ayuu waxa uu ku arkay daymankii qaaliga ahaa oo uu heli jiray indhaha ayuu taagay gabadhii ayaa la yaabtay ninkii waxaana ay ku tiri maxaa kugu dhacay oo aad la taagaysaa indhaha waxa uu ku yiri daymankan qoortaada ku jira aniga ayaan hore u helay waxaana aan siiyay nin boqor ahaa taajir ahaa waxaana uu ugu yiri waxaan ku siinayaa lacag waana ka diiday gabadhii inta ay ilmeysay ay waxa ay tiri Allahu akbar waa la aqbalay ducadii aabo ayaa mar walba waxa uu dhihi jiray
ilaahayow gabadhayda waxaad u sahashaa ninkii ii heli jiray dhaymanka ee aaminka ahaa. maantana ducadii waa la aqbalay, waxaa ninkayga ah ninkii aaminka ahaa ee aabbahay uu jeclaa. haddaba walaalayaal ogaada, aaminnimada sidaas ayay u fiican tahay. ninkii saboolka ahaana waxa uu isla helay boqornimo, haweeney qurux badan iyo dhaymankii uu jeclaystay, balse alla dartii uu ugu celiyey ninkii iska lahaa. aaminnimada maalin waxay kuu furi doontaa albaab khayr ah.